waxaana idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo xubinteennii faaqidaada waxaana daawadayaal diiradda ku saari doonaa guud ahaanba xaaladda ka taagan dalkaasi soomaaliya. wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in shirkadda hormuud oo ka mid a shirkadaha ugu waaweyn ee ka ganacsada dalkaasi soomaaliya ayaa la sheegayaa iyo kooxda al-shabaab inay isku dhaceen kadib markii bangiyadii iyo dhaqaalihii a v c da u mari jiray ay xidhay shirkadda hormuud. waxaana la sheegayaa in deegaanka saakow lagu toogtay 20 ka mid a shaqaalaha shirkadda kadib markii shirkaddu ay sheegtay inay si deg deg isaga soo xaadiriyaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya. waxaana la sheegayaa in kooxa fara badan ay ka baxsadeen deegaanadaasi meesha 20 ka mid ay ku toogteen magaalada saakow. dhanka kale deegaanka lagu magacaabo xawaadle oo ka tirsan shabeellada dhexe ayaa la sheegayaa in kooxaha macawisleydu ay ku weerareen sargaal sare oo ka tirsan kooxda al-shabaab kadibna ay dileen 2 wiil oo uu dhalay oo la sheegay inaysan waxba galabsanin. 2 wiil ayaa mid ay dileen kadibna way usoo qaateen madaxiisa deegaanka ama gobolka hiiraan si ay cali jeete cismaan uga helaan lacag madax furasha meesha kii kale oo dhaawacana la geeyay magaalada muqdisho. dhanka kale waxaan ku faaqidi doonaa diiradda ku saari doonaa barnaamijkeena 15,000 oo ka mid ah ciidamada soomaaliyeed oo loo tababari doono magaalada muqdisho kuwaasi oo la geyn doono degmo kasta oo ka tirsan gobolka banaadir 700 oo askari ugu yaraan baadhitaano iyo ammaankooda sugta. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan daawadayaal barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa waxaana barnaamijka alaabay la falanqeeya saaxiibka gooni oo inta badan ka faallooda arrimaha siyaasadda ee dalkaasi soomaaliya. axmedow haddaan ku hormarno waa mahadsantahay. haddaan ku hormarno horta hormuud iyo ururka al-shabaab dagaal muddo badan muuna haynin oo awal heshiis ayay ahaayeen waxaana lagu xaman jiray shirkadda hormuud in ururka al-shabaab sakawaad iyo dhaqaalo fara badan siiso. laakiin hadda amarkii kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu keenay in shabaab laga joojiyo akoonadii islaam banki ee kulahayn laga xayiro. maxaa la yidhahdaa shirkadda hormuudna ay xayirto e v c-gii iyo waxyaabihii lacagaha loogu marin jiray dhan in ururka al-shabaab laga xiro. al-shabaab way xanaaqeen waxay kasoo aruuriyeen shaqaalihii hormuud meesha la yidhaahdo ilaa ceelbuur ilaa iyo dhunkaas jacar iyo bergaan ilaa iyo meesha la yidhahdo coosweyne ilaa ceel dheer wixii halkaas joogo dhan ayay soo aruursadeen. dhulka ay ka taliyaan ay kasoo aruuriyeen waxayna isugu keeneen deegaanka saakow ee jubbada dhexe haddaana qaldanayn. halkaas ayaa lagu toogtay ilaa 20 ka mid a shaqaalaha shirkadda hormuud. 20kaas qof markay dileen shirkadahi kale inteeda kale waa la damiyey. shirkadda hormuudna waxay dhahay shaqaalahaas kaga soo carareen muqdishoha soo galaano marka inteeda badan shaqaalihi way carareen laakiin 20 qofood oo shirkadda hormuud u shaqeynaya ayay ku dileen deegaanka saakow. haddana waxaa leeyahay qaraxyadii labada ahaa ee soobe lagu dhiftay mid ka mid ah bankiga salaam oo ku yaala soobe oo meesha lagu qarxiyay agteeda ku yaala loo waday inkastoosa meesha uusan gaarin. shaqaalaha hormuud iyo ka mid ahna salaam bankina way ku dhinteen wayna ku dhaawacmeen qaraxa. maxaa lays dhihi karaa marka kooxahan al-shabaab isha keliya ama dhaqaalaha keliya ee wax u mari jireen dal iyo dibadba wuxuu ahaa bangiyada absiiba bangiga salaam bangi oo hoostaga shirkadda hormuud iyo shirkadda laftigeeda oo a v c balasta laftigeeda ay inta badan isticmaali jireen kooxaha al-shabaab. marka arrintana soo kama dhigna inay soo dadejinayso la dagaalanka kooxda al-shabaab afjaritaankoodii soloma moodin. aad iyo aad horta mar haddaa isku dirto dadka ganacsada iyo shacabka haddaa isku dhacdaan waa wareer. haddana ururka al-shabaab ganacsadana isku dhaceen shacabkuna isku dhaceen in yaroo ayaga la shaqeyso oo saaxiib dhow marka hore la ah mogiye inta kale waa isku dhaceen. haddana waxaa leeyahay shirkadda hormuud ayaga xabad ayaa ka dhexeyso wax u haray oo heshiisa ma jiraan wayna ku kala tageen. lacagihii sakawaadka oo shirkadda mar walba laga qaadi jiro malaayiin dollar ahayd meesha way ka baxday. hadda hormuud iyo shabaab dagaal iyo xabad ayay maraysaa xaaladoodana meel xun ayay gaartay haddiiba mar shaqaalihii la laayay ayagana anteenooyinka ay ka damiyeen oo gobolada qaar ay al-shabaab joogaan anteena la-aan ay yihiin xaalku meel xun u gaaray axmedow. marka waxaan u malaynaa hormuud iyo shabaab inay kala tageen hadda. agooniya waad mahadsantahay. waxaa jira warar soo baxaya oo shabeellada dhexe sheegaya in macawisleyda ciidamada lagu magacaabo macawisleyda ay weerar ku qaadeen 2 dhalinyara oo aabahooda sheegay inuu ka mid yahay ciidamada ama kooxda al-shabaab inuu ka mid yahay kadibna 2 wiil midna ay dileen midna ay magaranaysa isagoo dhaawaca loo qaaday magaalada muqdisho. arrintaas maxaad faahfaahin ka haysaa? horta labadaas dhalinyarada ah waxay ahaayeen horta ururka al-shabaab ayaga kama tirsaneen sida la sheegay laakiin aabahood ayaa ahaa shabaab. markii weerarka macawisleyda ay kusoo qaadeen aabihii woo baxsaday lugihiisu ku baxsaday uuna ka carar meesha deegaanka xawaadley meel u dhow ayaana guriga loogu galay. gurigii markii loo galayna xabad ayaa lagu bilaabay oo markiiba ay kala boodeen mid asagoo dhaawaca meelaha ku cararay mid ka midana way dileen wayna jirkiisa qaybo ka midana soo qaateen waxayna la soo aadeen cali jeete cusmaan oo waxay dhaheen waa nin shabaab ah halkaas ayay la soo gaareen. marka
marka qaar waxaa is leedahay haddii meesha 10,000 oo doolar wax la helayo waxaa u malaysaa dad shacab xataa marka qaar madaxa in laga soo jarayo marka waxyaabaha qaar oo halis keeni kara ayaa jiro dad shacab oo aan waxba ka ogeyn ama shabaab xoog ku haystaan ama dhulkooda ay joogaan inta madaxa laga soo jaro cali jeeta loo keeno cali jeeta asagana 5,000 ama 10,000 oo doolar oo bixiyo waa culeys marka cabsi kale iyo dhibaato kale ayaa halkaas ka dhalan karto marka waxaan dhihi lahaa xeelad saan ka duwan oo shabaab lagula dagaalamo ha keeno cali jeeta si aana dad shacab ah oon waxba galabsanin aan mar walba qoorta looga jirin axmedow dhanka kale magaalada muqdisho waxaa la tilmaamayaa inay ka jiraan oo la ururinaya ilaa iyo 15,000 oo ka mid ah ciidamada sugi doona ammaanka magaalada muqdisho arrintaasi maxaa iyada faahfaahin ka haysa horta ciidamada hadda isqoraya dhalinyarada Soomaaliyeed way isqorayaan waxaana leeyahay ilaa 15,000 oo maxaa la dhahaa ciidan ah ee dowladda Soomaaliya ku tala gashay tababarkoodana waa la soo koobi doonaa qayb ka midana waxaa magaalada muqdisho amnigeeda ay sugi doonaan degmo kastana 700 ilaa 600 oo askari oo heegan buuxa u ah oo joogta amniga sugayso oo qofkii xaafadda soo galaba qabanayso ayaa la diyaariyey marka tababarkooda waa la soo koobi doonaa 3 bilood bis oo qaadan doona saraakiil sarsare oo Turki iyo ajaanib ah ayaa tababari doona waxaan u malaynaa in mar dhow la dhameyn doono haddii 3 bilood dhawa waqti kooban marka ugu dambeyntii waxaa la dhahay amniga waa in la sugaa magaalada muqdisho qaraxyadu way soo bateen dhibaatada way soo badatay mar ka dambeyso amni xumo ayaa jirto marka si askartu ugu filnaato la dagaalanka ururka al-shabaab ee banaanada iyo kii gudaha magaalada muqdisho si ay ugu filnaato waxaa la sameeyey ilaa 15,000 marka 15,000 hal mar lama wada heli karo laakiin waxaan step ayaa noqonaysaa oo waxaa waaye mar ka dambeyso waa lasii aruurinaa marka waxaan ogaan doonaa ballanqaadkaas dowladdu way samaysay haddana qoridda waxaa la dhahay isbuuca soo socday bilaaban doontaa meesha ay gaarsiisan way ogaan doonaa gooniyow dhanka kale markii la fiiriyo si guud baa dagaaladii ka socday deegaanka masjid cali guduud waxaa kaloo jiray gobolka hiiraan in guud ahaanba laga dhameeyey kooxda al-shabaab waxaa kaloo iyadana madaxweyne xasan sheekh maxamuud dagaalka kasoo dhexgalay qaraxii maalinka dhawata ka dhacay soobayare laamiyaraha ka dhacay aan idhaahdo ka dhacay ayaa jiray markii laisku soo xoomiyo dagaalkii miyuu istaagay mise waxa weeyaan hawshana kasoo dhexgashay iyo qaraxan iyo howlahan horta dagaalkii sidii hore kuma socdo laakiin hadda taliya odwa oo maanta hadlay wuxuu dhahay dagaaladu isbedeli doonaan sidii kasii laba jubbaaranna waan samayn doonaa teeda kale wuxuu dhahay dagaal joogsan doona ma jiro ururka al-shabaabna haddaan weerar ku qaadi doonaa tii hore waxba ma ahayn mid cusub ayaa lagu qaadayaa waxaana ciidamada Soomaaliyeed uu ku amray in ciidan walba meesha ay joogaan ay ka dhaqaaqaan kana saaraan al-shabaab dalka ay ka tirtiraan marka waxaa kaloo jirto ciidamada danab iyo mareykanka iskaashanaya waxay duqeen deegaanka Saaskow waxayna ku dileen rag fara badan oo shabaab ah taasoo ay sheegeen inuu argudayaan maxaa la yiraahdaa shacabka Soomaaliyeed lagu qarxi soobe saaka aroortii waxaana la sheegay in dad aad u fara badan oo shabaab ah ay halkaas ku laayeen laakiin tirada saxda iyo saraakiisha meesha ku dhimatay maysan soo cadeen laakiin waxay dhaheen dad fara badan ilaa iyo 65 70 gaaray aan ku duqeynay deegaanka Saakow marka waxay leeyihiin waa ururka al-shabaab intoodaba waxayna leeyihiin shacabka Soomaaliyeed meesha lagu dhameeyay aan ugu argudayna mar ka dambeyso daawadayaal barnaamijkeena inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono mid lamid waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo